marka maareynta fasalku ama classroom management ama idaaratu saf waa ficilo iyo arrimo macalinka laga rabo inuu la yimaado si ay ugu suurto gasho inuu hirgeliyo hadafkiisii ama casharkiisii sida ugu wanaagsan isagoo markaa xakameynaya markaas ardayda iyo fasalka wixii aan munaasib ku ahayn casharka ayaa la markaa intaasaa markaa maxay ayaa classroom management ama maareynta fasalka laba qaybood baynu si guud u qaybin karana mid waxa weeyaan ka hor midna waa kadib oo matala markaan ka hor leenahay waxaan u jeednaa waxaan la maareynaya la raba inuu macalinku xakameeyo manage garayo intaanu waxaasi dhicin maxaa macalinka laga rabaa in la imaado intaanu mushkiladda ama waxaanaad xallin ama waxaanaad maareynaysaa dhicinba maxaa macalinka laga rabaa way sideedaba maareyntu ama arrimahani laba meeloodba ka yimaadaan labada meelood ka yimaadaan mid macalinka ka timaada mushkiladdan la xallinayo la maareynaya kalaaska ama fasalku mida macalinka weeya midna waa mutacalimka midna ardayga midna macalinka la xidhiidha ku tacalluqdaa midna mutacalimka ka wax baranaya ku tacalluqdaa marka sidee bay ugu tacalluqdaa matalan macalinka amba kan wax baraya dadka sidee ugu tacalluqdaa kan wax baraya waxay ugu tacalluqdaa haddii macalinku aanu si fiican wax u diyaarin oo aanu qorshihii iyo takhdiidkii hadafkii aanu lahayn aan soo sheegnay saameyn bay ku yeelanaysaa fasalkiisa wayde adiga laftaada waxaa wax badan kaa baahayaan marka maalin kasta waxaa tandiima uma soconaya way waxba kuma qorshaysnaa marka qayb bay ka tahay haddaanu macalinka si fiican wax ugu qorshaysnaa amaanu qorshaha iyo hadafyadiisa aanay u caddayn fasalkiisa saameyn bay ku yeelanaysaa arrimaha markaas saameynaya hadhow waxbarashada iyo kalaaska ardaydaas in waxyaabo qaladaada ay ka dhacaan oo dabeecado iyo afcaal aan munaasib ku ah waxbarashada ardayda qaar inay sameeyaan arrinta kale macalinka xaggiisa la xidhiidha waxay noqon karaysaa inuu macalinku uu ku fashilmo inuu firaaqada buuxiyo free time inuu ardayda siiyo oo haddaa macalinku waxaa laga rabaa bilow ilaa dhammaad ardayda inuu mashquuliyo haddaad ardayda mashquulin weydo iyaga ku mashquulinaya macallimiinta inay iskuulladeena haddaan u fiirsano dee waxaa laga yaabaa macalinku marar badan inuu ardaygu uu macalinku cid amba mashquul ku yahay amba halkan iska fadhiyo amba wax rasmiya aanu ku mashquulsanayn deeta ardayga firaaqa ay soo dhex gasho firaaqada ardayga soo dhex gelaysaa marka waa halka uu attentionkii iyo tarkiiskoodii aad marka hore sugtay uu mar labaad ku lumayo marka waa inaanad ogolaan laakiin su-aasha waxa weeyaan haddana at the same time waa inaad ardaygii aanad boring ka dhigin dee waa inaad malal ku ridin uu maantoo dhan u baahanayo dee inuu firaaqa helo si aanay taasina u dhicin de waad xirfadaha kale tanawacaadka iyo anshidada iyo nashaadaadka kale casharka ayaa suurtagal ardaygii mar waa inuu wax qorayo mar waa inuu discussion ku jiro munaaqasho mar waa inuu wax ka shaqaynayo mar waa inuu wax akhrinayo yani mar walba waa inu wax ku jiro wixiina waa inay kala duwan tahay marka macalinku hadduu ku fashilmo inuu firaaqadii buuxiyo mar walba iyadana waxaa imanaysa classroom managementka inuu macalinku maareyntaas u suurto gelin karo waayo arrinta kale waxaa ka mid a xagga macalinka ka imanaysa sulukiyaad u gaara macalinka dabeecadiisa oo waxaanu iman doonaa matalan macalimiinta laftooda anmaadtooda amba styliskooda iyo qaybahooda ayaynu iman doonaa marka macalinka laftiisa dabeecadiisa sidii hadda sheegeen walaalaha nacimo iyo markii aan bariga ku jirnay oo kale in nooca macalinku ay qayb ka tahay kalaaskaas markaas inuu fawdo noqdo oo fawdooyinka qaar uu maamuli kari waayo macalinka dabeecadiisa qayb ka noqon karaya laftiisa salukiyaadkiisa intaas marka waxa ka mid ah waa kuwa macalinka xaggiisa ka imanaya kuwa ka imanaya marka ardayga maxaa ka mid ah keenaya ina fawdaawi amba galaasku qas noqdo amba galaaska fasalku marar badan oo dhibaatooyin mashaakilaad buuqiisu badan iyo isqabqabsigiisa macalinku casharka uu dhigi kari waayo ardaydu si fiican wax u dhigi tarkiisin kari waayaan ardayga xaggiisana way ka iman kartaa kow waxaa keeni karaya matalan in ardaygu uu rabo inuu ismuujiyo oo waxaa jira arday kalsoonidooda amba shakhsiyaadkooda daatigooda raba inay muujiyaan si ay u muujiyaan marka waxay ku muujiyaan kan qabso kan qalin ka qaad kan waxaan samee
marka waxa la yidhaha idhaaru daat inuu qofku rabo inuu qofnimadiisa iyo inuu shakhsiyadiisa dadka tuso marka waa shakhsiyadiisa qofka gaarka u tahay ardayga waxaa qayb ka noqon karaa ardayda qaar ku keena arrimaha noocaasa fashil daraasi ardaygu inuu fashil ku yahay arday macallinku amba xaggiisa ka timaado amba ardaygu ha noqdo maadadaas ha noqoto maado ku adag imtixaan u dhacay ha noqoto ardaygu waa inuu yahay arday xagga casharka daraasadiisa soo akhrintiisa ku liita oo waalidkii arrimo fashil la xidhiidha ayaa keenaysa markaa fawdo inuu keeno mararka qaar arrin kale imankooda mashaakil usriya oo waana sababta ay muhiim u tahay macallinka iyo ardayga inay isbartaan is yaqaanaan oo ardayga waxaa laga yaabaa inuu fasalka uun ardayda la mid yahay laakiin guriga hawla kaga furan yihiin marka mushkilada usriya familiya haysata daraaddeed baa ardaygu halka markuu yimaado waa ku nafisaaba halkana uu iskaga saara marka stress badan iyo mashaakilaad badan haysta marka arrimahaasi waa waxyaabaha keena fawdo xagga ardayda marka sidaas waxna macallinka uga iman karaa waxna ardayga haddii labadaba ka yimaadaana waa meeshuba haysto qasanto sidaa daraaddeed ba markaa maaraynta fasalka ay muhiim u tahay macallinka inuu yaqaano sida fasalka loo maareeyo kow waa inuu mushkiladiisa xalliyo oo haddii khadiidkiisa tahay siduu wax u bixinayo dabeecada uu leeyahay dhammaantood waa inuu wax ka bedelo macallinka haddii uu iskuul aad leedahay uu ka tirsan yahay macallinkaas tababar la siiyo isaga laftiisa la horumariyo arrinta labaadna waa inuu sameeyo ka hortag profession ka hortag waa in la sameeyo